almajeerteeniya waxaan qarina ma hayne 5 diyaaradood oo drone ah oo nooca meelaha fogfog laga hago kaligooda duulaya daroonka waay alaabta xisbullah iyo xuutiyiinta baa ciidanka ammaanka Puntland gacanta ku dhigan micna garowe diyaaradahan marka ma cirkay ku socdeen mise dhulkay ku socdeen dadka jaahil bixirba isla markii la qabtaa waxa la xiriira saraakiil dhanka amniga oo qubro dhanka amniga expert ah oo reer majeerteeniya iyo reer hawiye iyo reer cawey cid kasta leh oo saaxiibadaya waxa la xaqiijiyay horta waxa jira Ilaahay baa garanaya in mid ka tirsan mas'uuliyiinta Soomaalida madaxda Soomaalida Ismaaciil Haniye laga dhigay laamicna ciwaankiisa uu bedel laayba waaya soo dhawaada marka arintan waa dul istaagi doonaayo warbixin idinkaga hayaaye gobolka maxay u dhibi kartaa xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya ilaa Itoobiya day maqasho Soomaaliya diyaarado lagu qabto daroon ah ciidanka xuduudda maxay tirayaan marka sabab loo dhaca Soomaaliya hooshaan intee u socotay barnaamijkan uu fuula rabaa maanta ama caawa inaan idinka jaahil bixiyo muuqaalkan share gareey wuxuu waa masiir de marka hadda siyaasad ma Soomaaliya lagu soo duulaba like you love and share soo dhawaada horta waa run intaan horta guda gelin barnaamijka hawiyi baa hadda meelaha kaga joogi lahaa booso inta ka soo hadal majeerteenka fan bay keeneen say dhulka fan ugu wadeen cirka la aadeen micna drones difaaca hawada Israa'iil ayaa banay dhahoyaanba war saas ma aha war baash saas ma aha diyaaradahan waxay ka imaadeen boosaaso dekada boosaaso horta diyaarada lagu sheegayo waa diyaarado waaweyn ma aha nooca xisbullah lagu aado iyo nooca Iran markay jawaabayso Iran maba jawaabtay marka qaar markay jawaabayso ridda iyo ma aha nooca Israa'iil difaac ka gasha ma aha laakiin nooc qatarteeda la hawiyay waaya xuutiyiinta ayay u badan tahay waa diyaarado yar yar oo la hagi karo oo mashina fuli karo Soomaaliyana ma qabto ama maamul goboleed ha noqdo majartanka moogina qabaan ama dawladda Soomaaliya ha noqoto ama hatta wadamada qaar gobolka maba haystaan diyaaradaas hatta qaabka lagu hortagi lahaaba waaya diyaaradahan marka dekada boosaas ay ka yimaadeen dabcan xuutiyiinta waa wax la qarinayo ma jiraan waa xuutiyiinta soo dhigtay xuutiyiinta marka hadda buurahan bari almaskeed iyo almadow iyo waa kala taqaanaan Soomaa beeba daacishti iyo shabaabka isku dilaanba diyaaradahan isku adeegsadaan boorta macna hore koox dhino qawaariij shabaab oo meel ku shirayso 89 baa lagu diraba jug oo qaraxa lagu qaadaa qaarna waxba lagu sawirtaa waaya diyaarada horta waa noocaas nooci waa weynaa ma aha daroon maadaama qashid daroon yariisa jirto oo adarab kaaran iska dirsan kar micna waa faantay Soomaaliya laakiin ciidan qaba kar ma jiro soo dhawaada marka diyaaradu waa noocaas boosaaso garowe jagboontiga nimanka ciise ruush ku dhigay ciise ruushka moota ruushka waa ruush always waa ruush maana ora lagu daay ruush nakab ay soo siiyeen ciise ruushka marka talaabaan say qaaday waa qabtay maas ayadoo dhulkay qabtay micna ruushka saxda ma noqon karaan moota ay dhulka jagboontiga ganacsataa wadato alaabtan baabuur electronic lagu soo qariyay ganacsata gaalkacya loo waday okay ma la qabto marka waxa intee loo wada ma xasan sheekha loo wada ma daniya loo wada marka rag oo waraw saaxiibada la sheekaystaa arimaan aad u indindheeyay marka hada wallahi hadii qawaariij kala ma jeclo horta dani iyo xasan sheekh idinka hawiyi daarood iyo dagaal kala iska jirtiin mugta kala ma jeclo labadooda in laga tiraabsado waa jecel yihiin qawaariijtu waa fikr 15 Cumar Maxamuud oo jeedin hadii arinta labadaasna ku socotaa marka see lagu kala saari karaa su'aasha marka hadii xasan loo wada xasan dhaafi maayaan adduunka xasan u nacbin horta heebaha koofureed waa dayaciin dhulka ay waa iska dayaciin cadala la iska keen lahaa marka la iska soo dejin lahaa meelaha la iska keen lahaa dhulka wax ilaaliya male in boosaaso la keeno oo gaalkacyo loo waday missionkan daniya waxa la leeyahay wuxuu bedel rabay Ismaaciil Haniye qaabkaas meena qaabka Ismaaciil Haniye ilaahay kama dhigo imri caafimaadna siiyo madaxda Soomaaliya oo dhan laakiin waa mission weyn way qatar gobolka ah way hadii xasan ramaan meelaha xeebaha wax yaala male xasan halkaas ku dili kara marka waxa rabaa madaxda Soomaalida alaabtan qawaariij u socotay madaxda Soomaalida ka digtoonaadaan mana haysanadee awood hadda aan drones uga hortagna ma qabnaba Iran laga xaluushi Iran trubas lagu qaatay intana waa easy marka xuutiyiinta ogow imaaraad iyo Sacuudi la dagaalsan yihiin danina waa saaxiib dhow oo imaaraadka ah xuutiyiintana Iran way حسابتاس انت فاهمي كرت way fahamsantahay dabcan xasan sheekhna waa sidoo kale marka
marka ciidankii ciise ruush inay baashaan qabtaan waa inaan u mahad celinno baashaan marka qabiil ma laha naftaada marka loo socdo madaxdoo dhan waa isku mid wiilashii ciise ruush ahaa ee beerka madoobayna waa ku mahadsan yihiin arrintaana madaxweyne deni iyo saraakiisha amniga puntland waxaan leeyahay hala dabagalo ganacsadii soo dejisay ciddii doonta waday ciddii baashaan ilaa ee tusad ha la baaro intaas waa idinka jaahil bixinaya waa sax maxay u dhibi kartaa xiisadda soomaaliya iyo etoobiya soomaaliya dalee u dhammaato waay dal qof rabto aysan jirin waay madaxweynehena wuxuu leeyahay soomaaliya heshiisa dunidana heshiis dunidana heshiis la duni heshiisna ma jirtaba imaaraadna ma rabo sacuudi kuma rabo qatar kuma rabto reer galbeed kuma rabo iiraan kuma rabto yaa kuwaitna ma rabto ciraaqna ma rabto qof ku rabto ma leh qof kastana danihiisoo fiirsanaa turkiyaan ku rabin xataa macal egyptiyaan ku rabin egypt haddii wax tarayso oo annagana anfacayso marinka rafaxee furu lahayd micnaha ana faantiin la rabaa qasal laguma dhammaadin saas u fiirsataa marka egyptiya ma aha waxaas yaa la isku sheegin waxaan rabaa marka hadday dhacdo in etoobiya hadda kolley waaba og tahay wax ma moogee in sida saxda ah doroniskaas uu soo galo soomaaliya waaba dhacdee maxaa dhici kara marka etoobiya xuduuddeeda iska dhaafee zone kale naga ilaashataa kore waaba soo dhaaftaba amnigeeda ayadoo ilaashanayso waana annagoo dowladoo etoobiya camal waxaan samayn lahayn waay dee jigjigaan dhaafi lahayn annaga si ammaanka muqdisho loo ilaaliyo soo ma amniga caasimadda addis ababa si loo ilaaliyo etoobiya haddii arrintan jambal waay dee waa inaa fahamtaan waa fuusto haddii etoobiya hadda ay ka war hesho in shan diyaaradood la qabtay waxaa macquula in madaxna lagu dilo ayagana lagu weeraro xataa iyadoo lagu weeraro ay fuusto tahay si loo xalaashado in ciidanka etoobiya ay gudaha soomaaliya soo galaan marka oo masar laga soo hormardee maxaa masar la sugaa maxaa amisom 31 december la sugaa diyaaradaaba inta yimid ya 5 diyaaradooda la hayaa amniga jigjiga amniga mataqaa addis ababa halis buu ku jiraa waa intii siyaasad fahmi karto taasna fuusto oo shisheeye soo riixeenna waa noqon kartaa in madaxda soomaali lagu shirqoolo ama deni ha noqdo ama xasan sheekh ha noqdo ama kuwo kale ha noqdaan way noqon kartaa soomaaliya muwaadinkaygiyo walaalkaygiyo saaxiibkaygiyo walaashay wallaahi waddankan halis buu ku jiraa waddankan hal cadow aragtaan adig midna ogaada dowlad interest la-aan kuula joogayso oo ku difaacayso farmaajina ha ka dhigaysan xasan sheekhna ha ka dhigaysan denina ha ka dhigaysan waa fahamtay soo ma dowlad kasta danteeday fiirsataa annagaa danteena meeye turki laftigiisa dantiisu ku joogaa meeshaan danaha ay leeyihin inaan sharaxo waa topic kale oo dowlad aan dul istaagno dowlad kasta waxay rabto laakiin soomaaliya farahay ka baxday cadow local iyo mid dibada waddankan micnaha adduunyada qaab loo sharax xataa soomaaliya ma jiraba dadki isma rabaan oo hawiye daarood hawiye war baasaboor hawiye leeyahay oo maamyaro idin sheegay idin weydiiyey oo senegal lagu tegi kara ma jiro mid daarood leeyahay oo uganda lagu tegi kara ma jiraa dareerkaa sankadhuudhiga oo foolxumada baa ujeedid laangaab agtiska tah qawaariij inta kugu jirtaa abu xamsa koo layidhaha afghanistan oo kaaga yimid ugandeska oo ku bahdilaa haye aniga intee maraynaa marka hawiya waa sax waana daarood sharaftiisa difaac hawiye sharaftiisa difaac markay qaranka imaadana qarankana wada geeya xulka qaranka ciyaarayna ha waa fahamtay soo ma ciyaartooyda arsenal iska soo horjeesta markii qaranka la tago iska dhaaf daarood iyo hawiye karaamada daarood ilaasho taraaxwe ilaasho tanaawiya laakiin markay qaranka imaado hala midoobo 5 daroon waa sheeko waaweyn waaye 5 daroon waa madaxda soomaalida ahla laayo waayde siyaasaday noqon kartaa fikir xag jiray noqon kartaa fuustay noqon kartaa dhinac kasta loo waxaan rabaa qof madaxda soomaalida qaar rakiisha ciidanka bal qof inay universal ama BBC ama VOA arrintan inay u fadhiisto hal saac waaye oo ummadda soomaalida la fahamsiiyo booska xataa intuu yaqaano waa dhaafta baashaan xildhibaan indhaa yaabay warwaadi salaamaya qaraabo guuleysta ciidanka ciise ruushna halkaan ka salaamaya jamaal jamcaale bandheere guuleysta